السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلو هذا صاحب هذا قيمة بدنه قصلي حبيبك صلى الله عليه وسلم وماشيني يا معلم كله وحنا أحسنتين بدي channel كنا وchannel كاني وأنا channel كيني هذا نقول سبتان وصابير هذا رنو لجوكتنا لايكتو وين دقاجسا وين الرجل وقتها مهما هيونك Soomaalidu ama xikmaduhu inay yihiin furaha hidaha iyo dhaqankeena hooyo. Maanta waxaan sahmi doonaa qaybo ka mid ah mahmaahooyinka iyo xikmadaha Soomaaliyeed weliba kuwooda ugu aan isleeyahay aad looma adeegsado laakiin way awood badan yihiin. Waxaan sahmi doonaa xikmado aan isleeyahay way awood badan yihiin run ahaantii aadna u qoto dheer oo waxay ka hadlayaan xitaa aad ku fahmi kartid si ka duwan marka lagugu sheego hadal caadiya iyo siday u saameyn karaan noloshaada shakhsiyadeed ama loogu dabaqi karo oo loogu hagaajin karo nolosha annaga marka adeegsano mahmaahooyinka qaybahooda kala duwan. Ka waran haddii aan kuu sheego 7 qaybood oo sahlan oo weliba si fudud aad ugu bedeli karto ama aad u adeegsan karto noloshaadana nolol maalmeedkaadana aad ka dhigi kartid kabacdina ku sii karta wadooyin fududood ku gaarto dhaqanka iyo hidaha inaad haysatid iyo weliba inay kuu toosido oo ay kuu hagaajiso waxyaabo ku sii kara ama kuu kordhi kara wanaag iyo xikmado. Dabcan islaam baan nahay hidiya dhaqanna waa dhahnaa laakiin hidaha iyo dhaqanku kooda wanaagsan wuxuu hagaajiyaa nafta kiisa xun sida dhibaatada qabiilaadka oo na haysatana haddii aan wax fahmayno oon leenahay maxaa hidiya dhaqan u sheegay dad islaam ah nahay waxaan ka waatoobi lahayn colaadaha iyo isdilka iyo qabiilaadka. dabcan intaas aan uga soo gudbo midaas hawshani siyaasad ma ahayn laakiin waa inaan kula wadaago qodobo aad ku fahmi kartid hidaha iyo dhaqanka xikmadaha Soomaalida ku jira iyo mahmaahooyinka iyo inaad noloshaada ku dabaqdid oo noloshaada ku hagaajid kabacdina aad ka qaadatid faham qurxan oo qoto dheer. haddaba haddii aad xiisaynayso hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ama aad danaynayso inaad wax badan siyaasato adoo Soomaaliya haddana wax badan inay kaa maqan yihiin laga yaabo nala joog oo nala dhegeyso muuqaalkaana wuxuu noqon doonaa dabcan muuqaalkaad aan bilaawno safarkeena sahminta dhaqanka iyo hidaha mahmaahooyinka iyo xikmadaha. run ahaantii dhaqankeena Soomaaliyeed waa hanti suugaaneed maguurto ah. mahmaahayaduna saan ognahaba waa laf dhabarka dhaqanka iyo hidaheena Soomaaliyeed waa odhaaho xikmad ah oo jiilba jiil u gudbiyo. saan ognahaba waxaan idiin soo gudbin doonaa 7 hab oo fudfudud sahlan oo ugu dabaqi kartid noloshaada mahmaahooyinka iyo hidaha iyo dhaqanka welibana mahmaayo qodob kasta oon idiin sheego su-aal baa idinka weydiin doonaa. aan bilaawno haddii aad diyaar u tahay inaad baratid xikmado mahmaahooyin kaa qarsoon soo bax. tilaabada koowaad ama qodobka koowaad waa fahamka mahmaahayada iyo xikmadaha doorka ay leeyihiin. run ahaantii dhaqanka iyo hidaheena marka la fiiriyo mahmaahooyinka ama xikmadaha ama xiraalayaasha ma ahan hadallo caadi ah ee waa wax lagu dhisi karo bulshada. waa qaab xikmad ah lagu xallin karo dhibaato walba oo marka waa inaad u fahanto dhinaca wanaagsanna ka fiirido. haddaad xiraale maqashid amaad mahmaahyo maqashid run ahaantiina waxay tahay ama nagu fiicnaa lahayd inaan fahanno saan u fahanana aan u qaadan. haddii aysay tahay aan u qaadan lahayn xikmadaha iyo mahmaahooyinka wax badan baan xallinahayn sida dhibaatooyinka ka taagan maanta dalkeena hooyo xal baa loo heli lahaa haddii aan u isticmaali lahayn sida saxda ah ee xikmadaha mahmaahooyinka iyo madadaalo iyo xiraalayaasha iyo xikmadaha. waxaan awood u yeelan lahayn inaan dabirno ama xallino
xaalad walba oo ka taagan dalkeena. Maxaad ka fahantay mahmaahyada ah haddii aad rabtid inaad samirtid ama aad tahay qof samar raba ama in wax u dulqaata raba? Maxaad ka fahantay geel maalin kuma dhalan ama geel maalin kuma dhalo? Tallaabada labaad ama qodobka labaad waa mawduuca sahminta mahmaahyooyinka ama mahmaahyada. Waxay diiradda saaraysaa qiyamka qofnimada ama bulshada, adkaysiga iyo faham. Xigmadaha ama mahmaahyooyinku waa cashiro wax ku ool ah oo bulsho dhan lagu dhiso. Su-aasha kale aan kaa weydiiyo qaybta labaad, maxay kula tahay? Hadal waa laga bogtaa, howlna waa la bartaa ama waa la isbaraa. Hoos noogula wadaag. qaybta saddexaad, mahmaahyadu waxay awood kuu siinaysaa in aad wax baratid, inaad fahantid casharo adag. waxayba kuu fududeyn kartaa casharo adag inaad fahantid ood weliba ku fahantid si fudud. haddaad fahantid mahmaahyada, waxaa kuu fududaanaysaa inaad ku fasirtid casharo haddii si caadi lagugu sheego ama hadal haddii si caadi lagugu sheego aadan fahanteen inay fudud. tusaale ahaan aan usoo qaadano, marka lagu leeyahay barasho horteed ha inicin, waxay ku baraysaa in dulqaad iyo ka fiirsi iyo faham kabacdi wax aad nici kartid ama qaada kartid. ma xukumi kartid shay aadan fahmin ama aadan baranin ama qof aadan baran. saas daraaddeed waxaa la dhahay barasho horteed ha inic. qaybteennii saddexaad iyo su-aasheeda, adigu ma isticmaashaa mahmaahyooyinka iyo xigmadaha afkeena hooyo si aad u fahantid qof walba ama dadka adiga kugu xeeran ama dadka ku ag degan ama dadka ku ag jooga ama dadkaad la socotid si aad u baratid? ma adeegsataa, ma isticmaashaa mahmaahyooyinka iyo weliba halxeraalayaasha? qaybta afaraad ayaa ah isku xiridda jiilashii hore iyo kuwan hadda jira, jiilashii hore iyo kuwa dambeba aan dhahno. mahmaahyooyinku iyo xikmaduhu waxay bixiyaan casharo muhiim ah. saas daraaddeed tusaaleaan waxaa lagu leeyahay libaax laba webi kama cabo ama libaax laba biyo kama cabo. taas maxay ku tusaysaa inaad diiradda saarto hal meel oo qura si aad u yeelatid awood buuxda iyo isku filnaansho horumar. haddii aad go-aan qaadatid libaax laba webi kama cabo, macnaheedu waa libaax hal go-aan uu leeyahay, adiguna inaad hal go-aan yeelatid. dabcan hal go-aan maalinka aad yeelatidna waxaad yeelanaysaa awooddaadu hal meel bay isugu tegaysa, waxaadna qaadan kartaa go-aan saxa. su-aasha qaybtii afaraad, adiga weli ma kaa caawiday mahmaahyo ama halxeraale ama xigmad? ma ay kaa caawiday xaalad kugu adkeed ama wax ma ku xalliday oo xal waara ma ku gaartay sababta mahmaahyadaas ama xigmadaas? nala wadaag. qaybta shanaad ayaa ah ama mawduuca shanaad, mahmaahyooyinka iyo xigmaduhu waxay leeyihiin sheekooyin taariikhi ah. tusaale ahaan waxaa la dhahay nin xil qaaday eed qaad ama nin xil qaaday xilaa qaaday, qolba siday u taqaan. taas waxay ka turjumaysaa awoodda ay leedahay mas-uuliyadda, ha yaraata ama ha weynaa, noocay doontaba ha ah. haddii aad fuuganimo u qaadid mas-uuliyadda, xilaad qaaday eedna waad qaaday. haddii aad daacadnimo iyo inaad siday tahay u gudatana, xilna waad qaaday eedna waad qaaday. mar kastabana wixii aad geysato uunbaad ka sugaysa. su-aasha qaybta shanaad, bal adigu sheeko noocee ah ayaad ku macnayn kartaa mahmaahyada ama la xiriiri wax uun ku saabsan nin xil qaada xilaa qaada ama nin xil qaada eed qaada? qaybta lixaad waxaa weeye dhiirigelinta shakhsiyadeed. xitaa waxay kugu dhiirigelinaysaa mahmaahyooyinka ama xikmaduhu shakhsi ahaan inay kuu dhiirigeliyaan ood ka heshid dhiirigelin. maadaama aad tahay adigu qof diyaara u ah inuu noloshiisa hore u socdo, waxay kaa dhiirigelinayaan ama kugu dhiirigelinayaan inaad heshid wey mar kastaba aad uga fakatid caqabadaha. haddii aad u fiirsatid, dhegaysatid ood baratid kuna dhaqantid, waxaad noqonaysaa qof caqli badan, xigmad badan, meel xiri ama meel celinayna aysan jirin, irid walba ka baxay. markaa baratid xikmadaha iyo mahmaahyooyinka afkeenna, waxaad qori kartaa maalin walba hal ama laba mahmaah. waxaadna noqon kartaa qof wax badan ka fahansan afkiisa iyo weliba hiddihiisa. weligaa ma isku dayday inaad ku dhaqantid hal mahmaah? qaybta toddobaad uguna dambeyda waa ilaalinta xigmadaha iyo mahmaahyooyinka iyo xilka naga saaran annaga inaan ilaalino hiddaha iyo dhaqanka. mahmaahyooyinka iyo xigmadaha waa mas-uuliyadna saaran, qof yar iyo qof weynba. waana wax joogi kara haddii aan ku dhaqanno annagu su-aal iska weydiino, jawaab isaga celino. kow, marka la yidhaah dhinaca soomaalinimada oo qabyaalada laga soo tago, waxa ku xigo af. dabcan waxaan u baahannahay inaan su-aale iska weydiino, jawaabana isaga celino si uusan u dhiman af, si aysan mahmaahyooyinku u dhumin. xigmadahana inta adiga kaa annaga naga dhuman aysa dad kale u yeelan. haddii aan ku dhaqanno
oon isweydiino waxaa awood u yeelan karnaa inuu sii jiro afkeena mustaqbalka dambe, jiilal kale oo naga dambeeyana haddiiba ilaahay na gaarsiiyo aan si gaarsiino. Su-aasha ugu dambeyda aan kaa weydiiyey, adiga ma kula tahay in jiilasha dambe ay wax ka bartaan hiddaha iyo dhaqanka? hoos nagula wadaagayda. Muuqaalkan ma kugu dhiirigeliyey hodantinimada afkeena hooyo iyo hiddaha mahmahyooyinka xigmadaha? jawaabtaadu hadday haa tahay, nagu soo biir oo subscribe saar. Haddii aanan anigu isdhiirigelin dhanka fiicanna isu toosin, ogow ma jirto cidna dhiirigelinaysa ama nagu toosinaysa wadda annaguba aanaan u jeedin. Inaan isdhiirigelino waa dhaqankeena, laakiin inaan isdhibno haddii aan isdhibi jirnay aan u bedelno inaan isdhiirigelino. Waan salaamay.